وحل برقاء nin da'diisu tahay 60 jir ayaa fadhiya meel barxad ah isaga oo ku mashquulsan tulidda dharka jeexmay bukaanada xarunta kula jira halkan waa xarunta daryeelka caafimaadka ee Dhimir Care ee ku taala deegaanka Tabeelaha ee duleedka Muqdisho waxa ku jira bukaano u kala qaybsan rag iyo dumar oo la tacaalayo xaaladooda caafimaad ee dhinaca maskaxda iyo dhimirka Cabdirisaaq waxa uu xaruntan ku jira tan iyo 4 bilood ee la soo dhaafay ehelkiisa ayaa go'aansaday in ay xarunta keenaan si loogu dabiibo isaga oo maskaxda ka xanuunsanayay hadda waxa uu dareemayaa xasilooni iyo caafimaad wuxuuna bartay sida harqaanka loo tolo waa fursad uu doonayo in uu noloshiisa ku dabaro marka ay daweyntiisu dhamaato oo uu xaafadiisa ku laabto يعني وقت دو إماتي كنت عن إيمانه وحوم أوجيناني وحير وكودا وحن كوجينا معنا تقاطير عن كوجينا أو كبرتو إن والنتي يمشي لقاها يحنون كاس وبديه نن لما دجالس لكن هو شيء لقاه ربي مفلنيس مربر يدري بيرت أنتي وكسوتي وحقنا قومي وحبهم قادنا وقوم متخندو beerta gooma cuni nusnus waxba mu qaadan oo wuxuu walaalkii waalan waayo beerana u dhibtay waxba ma aha wuxuu ku wada yiri macnaha ciyaalo uu soo daray oo adeerkooda ah kuwii ciyaalka iimaanayeen xamara lagu geenayaa waxa laga soo fiiriyaa leeyahay macnaha waalidaad inay zaad tahay oo laqaba wax laga qaban karo in wax laga qaban karin oo ilaan anaga mana qaana ma fahmi karno abaagna waa dhintay hooyadan waa dhimatay waayaanay baabuur soo ijaaray oo Land Cruiser ah baabuurkii aan afar ku soo kornay subxii salaadeen soo baxnay anigu waxaan soo qaatay koof weyn waalid waxa uu fiicnay koof weyn oo daasiin koofidii saas oo ku qoladan bulldozer-ka iyo okiyaala amrobi okiyaala ciyaalka ay keenay ma qaameyska keenay waa la yaabanayo kala keenay aday wala soo inta la keenay wallahi been ma sheegay macnaa adaan xasuusta inta macnaa nolosha aan ku sugnay haddaan fiicanahay hadda waxaan u shalaanayaa walaalka beerto ilaali ku dhahay hadaa ilaalisid oo daanyarka ilaalisid oo dugaagta ka ilaalisid oo raashinkaada cuntid waraa wax kaaga fiicnaa ma jirin laakiin maskaxdaas ma haynin aniga kani waa wiil dhalinyaro ah oo aan dooranay in aan ugu yeerno magaca Saciid oo aan ahayn magaciisa dhabta ah dhowr bilood ka hor ayuu maskaxiyan isku buuqay waxaana la keenay xarunta Dhimir Care oo si weyn ula tacaashay xaaladiisa markii la keenayay xarunta ka hor waxa la geeyay dhowr xarumood oo kale balse nasiib darro xaaladiisa waxba way ka qaban waayeen hadda waxa uu dareemayaa nasiino iyo caafimaad qab wanaagsan ما شاء الله markii aad liikeenay hadda farqi badan oo dhaxay maxaa yeelay markii liikeenay hadda laba mid waa markii liikeenay waxa qof oo buuqsana asku ah marka hore hadda xaalad degan jawi degan oo bilooyin aan sayna ah helay iyo caafimaad lagu dadaalay waxa waay hadda isbedel badan dareemayaa ina horumarkay ka shaqeeyo wixii danteeda aan fikiro waxbarashada si wata ama hadii shaqo la heli kara si shaqeysto saas ina si watan si jala ila jaamacad waa gabagabo ay la semesterkii ugu dambeeyay waa dhamay dhaqaatiirtu waxa ay qorsheeyeen maadaama uu Saciid soo roonaaday in uu bulshadiisa dib ugu laabto isaguna waxa uu qorsheynayaa in uu dib waxbarashadiisa jaamacadda u bilaabo hadda waxa bug difaacadeed iyo ina maadooyinka oo lagu leeyahay ina ka difaacda la bisaayeen intaasna insha Allah haduu ilaahay fududay ina oo dhameystajala kuliyada maamulka maareed deegaanka ay xaruntani ku taalo oo ah meel jawi degan dhaqaatiirta oo aqoon iyo khibrad ahaan dhisan iyo adeegayaasha kale oo ah dad aad u heelan ayaa xarunta ka dhigtay mid ay bukaanadu si fudud uga helaan deganaan xasilooni iyo dhaqan celin wanaagsan muddo 3 bilood ayaa hadda laga joogaa jamca walba u imaan jirnay caafimaadkiisu waa soo reeynay soo fiicnaanay marka
mar oo dhaxdaas oo adiga 2 bilood oo kale bil iyo xoogaa laga joogo ayaa meesha ugu nimid markaas ay ninkii oo xoogaa oo fudeed yar ku jiro ayaa meesha ku aragnay doctorka uu sheegay waa arkay yiri baashaas adiga hooshada dhaan ay taala baashina kolba waa uu ka shaqeeyay jamcihii oo xigay markaa nimid nin degan oo akhyaar oo adiga markaas oo dadkiis wareysanayo oo awal dadka lama hadla jirin oo soomay soonka waa iska aamusnaa raashig waa diidaayay hadii aniga u keeno waa iga diidaayay hadaa adiga u keento maalin inaa wax ka cuno ayaa suurtagelaysay marmarba inuu ku sanafo oo isaga waxba cunaynin ayaa jirtay alxasan marka meeshaan ilaaha nagu daaweeyay horta daawada ilaaha iska leh awoodda rabbiga iska leh marka daawadii oo meeshaan ka raadinaynay waa ka helnay xarunta dhimir care waxa ay ka kooban tahay 2 qayb oo kala soocan oo ay ku kala jiraan ragga iyo dumarka qayb kastana waxa ay leedahay adeegayaal u go'an oo si joogto ah ula socda xaaladda bukaanka xarunta ku jira ما شاء الله بركة ما شاء الله أنا بربلم سعيد أي مرة هذا لك صافي عنا صار جل ما شاء الله ضد كي قال قبضنا كيف عنا muddo badan horta waa xanuunsaneed meel walbana waa geeyey ilaa gobolada xataa aan geeyey dadka qaar ayaa waxay leeyihiin qoftaan micnaha daawadeeda macquul ma ahan daawadana kole alla haayo waxaa ii suurta gashay inaan soo booqdo xaruntan weyn ee dhimarka qaybtan ku taalo jaamacadda shabeelle markaa dhimaatidba kole eedaa wejiga kaa qabanayso tilmaam kadib waan imaaday waxaa ii suurta gashay in auditorka alla kulmo uu yidhaahdo qoftaan waa qof la daaweeyey karo qof maasha allah xaaladeeda wax laga qaban karo auditorka wuxuu yidhi caafimaadka alla haayo laakiin dadaal badan waxaa u suurta gashay maanta in micnaha 4 bil kadib qofkii sidii hore kusoo noqoto maskaxdeeda kusoo noqoto heerkeeda u noqoto caruurteedii iyo guriga reerkeedana dib ugu laabato xarunta dhimir care oo la aasaasay 10 July sanadkii 2018 waxa ay la tacaashay oo ay baxnaanisay xaaladda bukaanno badan oo rag iyo haween isugu jira kuwaas oo da' walbana leh maadaama xarumaha qaar si dadka loo dhaqan celiyo ama xagga dhimirka loola tacaalo la adeegsado in la jirdilo oo la ciqaabo taas beddelkeed waxay xaruntani xoogga saartay in bukaanka lala saaxiibo la daweeyo la nasiyo xirfad la baro kadibna qofkii oo caafimaad qaba isla markaana xirfadyahan ah uu bulshadiisa dib ugu noqdo حالدي انت مهنا waxaan qof isku dhaxyacsan oo isku buuqsan marka nafsada aanteeda taa inaan gooyaa maraan damcay labo mar amal waxaan isticmaalay mataqaanaa sunta dililaa doolida ama jiirka labo mar aan cabay labada mar wax dhibaato sii gees mijirta mar waxaan xasuustaa anoo falay bilisray markano mirtay wiilulaalkay kortaaga markano oo dhignas siinay xaruntu waxa ay bukaanada kala taxaashay oo welina ay ka shaqaynaysaa daaweynta xanuunada dhimirka ku dhaca kuwa walwalka iyo walbahaarka ka cabanaya kuwa qalalka ka cabanayay iyo kuwa isku kaadinta ay dhibaato badan ku haysay waxay sidoo kale xarunta talooyin iyo daaweynba siisay welina ku howlan tahay dadka qabatimay daroogada kuwa shakiga iyo maseerka uu hareeyay iyo dadka nolosha ka dhacay ee la doonayo in ay bulshada dib ula qabsadaan oo ay mustaqbalkoodii u dhistaan waxay xaruntu aad ugu dadaashay in dadka bukaanada ah ee xarunta la keeno aan la tacaalidoodii lagu koobin oo kaliya in la siiyo daryeelid iyo daaweyn oo kaliya balse la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan sida harqaan wax ku tolista iyo kuwa kale si ay marka dambe u noqdaan kuwo ku filan noloshooda iyo tan qoysaskooda